السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka gufaaco ka dhageysanaya radio forum CKMS 102.7 FM kana daawanaya Somali Canadian TV barnaamijka gufaaco maanta waxa marti noogu ah Idris Umar oo kamid ah dhalinyarada wax ku baratay Waterloo Region jaamacada ku yaala isla markaana sharciyaan qaan ah degan Waterloo Region Idris waxa aad nooga warantaa bal xaaladda community Soomaaliyeed Somali Canadian Association Waterloo Region xaalkiisu sida uu yahay maanta iyo markii isku keen dambeysay halkii uu marayay bal nooga waran waa anigoo tafatira Xamed Sultan Cali Cilmi Sultan barnaamijka gufaaco بسم الله الرحمن الرحيم واد معدسنتahay Mr. Xamed adiga iyo inta kugu xiran baa salaamaya horta markii isku keen dambeysay waxay ku dambeysay barnaamijkii waxaad runtii ka mid ahayd odayaashii dhexdhexaadinta dheeraadka ah sameeyay dhalinyaradii waday in ay maha doorasho u qabato bulshadana odayaashii macnaha gacanta ka qabsaday baad ka mid ahayd markii kadib loo daayay macnaha aad jawaab fiican ka weeday dadkii maamulka gacanta ku hayay waqtiga iyo odayaashii magaalada saad adigu la socotayba wixii ka dambeeyay markaa macnaha qodobooyin kala duwan bay ay dhalinyaradii ay sameeyeen laakiin dhawaan baa waxa soo baxday hadal baa dibadda u soo baxay hadalkaasi markaa wuxuu focuskiisu ahaa boorkii markaa joogay oo ilaa imikana jooga oo 3 qof ahaa baa waxa dhacday inay iyaga isqabtaan oo ay isku qabtaan su'aashii taagnayd waqtiga laftigeeda ay ku jirtay oo ah in doorasho loo qabto bulshada maadaama doorashadii ugu dambeysay si toos ah loo qabto ay ahayd 2019kii ama 2019kii 2021kii doorasho online baa la qabtay oo macnaha Zoom ah maadaama waqtiga COVID-19 jiray laakiin doorashooyinka bulshada iskugu soo baxdo la doorto dad boorka loo dhiibo ama gudida bulshada loo doorto xafiiska Somali Community ee Waterloo Region waqtigaas ay ahayd maadaama waqtiga ahayd markaa waxay waqtiga dhalinyaraduna lahayd war doorasho hal la qabto si markaa dadkii idin soo doortay aad ugu warcelisaan oo tiraadaan 2 sano ma dooratay 2 sano way dhamaatay 4 sano kala ku darsan marka imikii haatanna doorasho la idin qabanay soo diyaar garooba qofkii markaa doonayay inuu maaragtay volunteer ama si mutaacid oo dadka ugu qabto halka maxamed Idris oo adoo raaliya waxaan ku weydiinaya waxa tahay sharci yaqaan maadaama ay halka marayso darkayso boardkiina waxa uu ku sugan yahay general meeting la qaban maxaa ku haboon baasada sharci ahaan maanta oo dadka barnaamijka cid walba dhageysanaysa aad gaarsiinaysa horta waxa dhacday horta mar 3 qof ee boardka ku jiray baa iyaga horta isqabtay sida maaragtay aan warbixin sugan ku hayna hadda wiigagii la soo dhaafay dhexdooda markaa guux badan baa ka jiray isqabqabsi fara badan oo ka jiray dhexdooda waxayna isku haysteen wuxuu ahaa doorasho aan qabanno iyo doorasho ma qabanayno iyaga dhexdoodii macnaha marka koox kamidii waxay lahayd warniyo sidan suurtagal ma aha 7 sano oo dadka soo horfadhiyay aynu dadka doorasho u qabanno koox kamidina waxay tiri doorasho lama qabanayo marka waxa qasab noqotay maadaama hadalkoodii dibadda u soo baxay in shirar la galay kala duwan oo odayaal magaalada qaar kamid ah inta loo yeeray macnaha odayaal la soo xushay oo si gaar ah loo soo xushay kadib shirar kala duwan la sameeyay shirarkii dhexdoodii waa marka dhowr oday loo xil saaray in ay macnaha ay boorka soo heshiisiyaan maadaama boorkii wada shaqeyn yahay oo isku haystaan doorasho la qabtay la qaban maayo odayaashii markii ay la kulmeen dadkii boorka ahaa waxba way ka macnaha way ka soo saari kari waayeen oo macnaha way jiidan bay noqotay odayaashii faraha ka qaadeen marka iyagiiba diisku gulooda waxay yiraahdeen xagee war ku celinaa xagee wax geynaa iyayna soo dirsaday macnaha wax macnaha oday la'aanta magaalada ka jirta waa macnaha taasi ay ka waramaysaa moogtahay marka soo duuduub taasi waxay kaliftay marka in kooxdii boorka ka mid ahayd oo treasurku ka mid yahay oo ninka ku saxeexana warqadda nimka soo baxday baa waxay la tashadeen bulshada ama memberski ama xubnaha maaragtay memberska magaalada degan kadib
dad ilaa adigu lixdameeye ku dhow baa warqad soo saaray magacoodiisa ay ku yaalaan oo ay leeyihiin macnaha doorashaan u baahannahay. warqadaas requisition baa la yidhaahdaa. warqadaasaa markaa dibadda usoo baxday. marka taasaa hadda maaragtay bulshada ku dhex jirta. marka sidaas weeye. warqadaasna kolley sharaxaad bay u baahantay laftigeeda dadka lala sheergareeyo oo loo sharaxo dadka bay iyada laftigeedu muhiim ah. laakiin warqadaa waan rajaynaya inaan imika helo, maalintan helan waan la soo socodsiin doonaa bulshada. iyadana barnaamij gaar aynu ka duubi doonaa oo sharaxaadda ku saabsan iyo sida sharciga muxuu ka qaba iyo qodobada loo raacayo. waayo warqadda inta aan sugayno maxaad gaadhsiinaysaa dadka, maadaama ay yihiin dad Soomaaliyeed oo community-gana yahay community Soomaali dhammaanteed ka dhexeeya, maxaad gaadhsiinaysaa dadka barnaamijkan dhegaysanaya ee Soomaaliyeed dhammaantood siiba Waterloo region? wallahi horta waxaan gaadhsiinayaa runtii dhalinyaradan imika qaarkood runtii horta dhalinyaroo dhani waxay jeceshahay wanaagga iyo horumarka bulshada. dad badan oo odayaalina waxaan aaminsanahay inay iyagu laftigoodu jecel yihiin wanaagga iyo horumarka bulshada. dad badan oo rayid ah oo dumar iyo carruur iyo cid walba ka midna waxay jecel yihiin wanaagga iyo horumarka bulshada. marka wuxuunbaa muhim ah ku fahmaan muhiimadda ay leedahay ururkani inuu sii jiro. ta keliya ku sii jiri karaana waxa weeyaan in sharciga loo hoggaansanaado oo dadku markay muddadoodu dhammaato, 2 sano la doorto markay dhammaato, markii hore bilaash baa lagu shaqeeyaa, cid lacag qaadataa ma jirto. markay 2 sano u dhammaato inuu intuu qof walba si volunteer iskaga yimaado yidhaahdo aniga 2 sano way dhammaatay, qof kalaan siinayaa chansiga si qofkaa kale markaa maaragta usii wada hawsha. taasaa qurux badan. in dadkuna fahmaan baa qurux badan muhiimadda ay leedahay is-aaminaadda iyo wax wada qabsigu. haddii maaragtay qof waliba uu qofka kale si uu riixo waxyaabo xunxun oo runtii western nationka 21st century inagoo joognaa oo 2025 ku jirna qabiil iyo waxaan faa'iido lahayn lagu dhaqmo, maskaxda dhallinyaradana way baaba'aysaa, horumarna ma imanayo. marka waxaan jeclaan lahaa oon dadkana u sheegayaa qof walowba gaxdaada ka shaqaysii, ilaahayna ha ku garansiiyo dariiqa toosan kaasoo ah in bulshada si saxa loo hogaamiyo, in laga saaro wixii qalalaasa ku jira, in sharciga lagu hogaamiyo. sharci baynu leenahay, sharci bay Ontario usoo dejisay ururada noocan oo kale ah. adeerow sharcigaa lagu dhaqmo. odayaashan suuradaba yaacaya ee marmarka qaarkood si qaldan laga yaaba inay u taliyaana haddaydan tali wanaagsan soo jeedinaynin, adeerow dhalatay iska jooga, dhalinyarada u daaya, barnaamijkan ha wadatee. intaasaa horta tala ahaan iga qurux badan. warqadaasna markaan gacanta ku dhigo sharaxaad dheeraada warqadaa ku saabsan iyo qaabka u shaqaysa baan soo gudbin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxa aan dadka bulshada ku dhaqan dhammaantood Waterloo region leeyahay, waxaa jira ashyaa dadka muslimiinta loo baahan yahay marka wax la hagaajinayo in laga ilaaliyo. waxaa ugu horeeya oo ay tahay wax xadgudub, in dadku isku xadgudbo, in dadku isdulmiyo, in xasad la isku arko dhexdeeda, iyo anaaniyo wax la yidhahdo ana iyo qabaliyad, iyo qofku inuu isagu muuqdo inuu u arko, iyo dadka oo la yaso, iyo kibir, iyo dadka oo la liido. haddaba waxaan leeyahay dadka barnaamijkan dhegaysanaya waxaan rabnaa Waterloo region dad wanaagsan baa degan, odayaal fiican baa degan, dhalinyar fiican oo waxbaratay baa degan, in arrintan iyada ah laga shaqeeyo. islaaxu data bayn uu ilaahay ammaanay oo dadka muslimiinta waxyaalaha ugu fadliga badan leh ay tahay, uu ilaahay yidhi aayadda qur-aanka ee la wada yaqaano laa khayra fi kathiir, dadku faq iyo shir ma galaan ilaa 3 baa ugu khayr badan. dadka oo maslaxad la dhex dhigayo, islaaxu bayna annaas la dhigayo, waxa fiican oo la farayo oo xumaanta la reebayo, iyo sadaqadii oo la farayo. waxaan leeyahay bulshada rag iyo dumarba leh ee ku dhaqan Waterloo region inay dhammaantiin ka shaqaysaan arrintaa iyada ah oo dadka Soomaaliyeed marna aan kala maarmayn. aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa walaalka Idris oo runtii nin dhalinyaro oo aqoon-yahana danaynayana bulshada. Idris oo aad iyo aad baan kuugu mahadnaqayaa barnaamijka Gufaaco Radio Borome Somali Canin TV CKMS 102.7 FM
anigoo ah Tafatira Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan. mahadsantahay. Salaamu calaykum.